ogowna maadadan research methodology-gu ma aha maada ka daba hari doonto. haddaa baaj ka dhameyso waxaa laga yaabaa baaj labaad inaad diyaari doonto, inaad master aadi doonto, inaad meelo kale aadi doonto, xitaa shaqadaada soo dhexgelaysaa. maadada research methodology-gu haddaad dhehaysa xataa jaamacadiyaan dhameeyey aniga maanta kadib waxaan ugu baahanaa buuggayga difaacday. muhiimadda waxay tahay maadada ma taqaanaa buug difaaco ama ha difaacanin. waana nasiib dara runtii inaad lacag $50 iyo ka badan $100 inaad ku bixiso buuggaaga. laakiin waxa ceeba adigoo ku baran kara lacag $20-$30 ku baran kara. bal eeg, idan midna ogow, ceeb ma aha baajkaaga ugu horeeyo inaad ku wareerto qaabka loo qorayo. laakiin waxa ceeba beri adigoo master ah inaadan aqaanin sida buuggaaga loo qoro, sida ciwaan loo xusho, sida waxa loo yaqaano ishe buuggaaga loo difaacdo aadan garanaynin. yani taas baa ceeba. ceeb ma aha waxa loo yaqaano inaad baajkaaga ugu horeeyo aad ku wareerto. ciwaanka kan horta hore waxaa weeyaan cutubka 3 wuxuu ku yaalaa buugga hagaha cilmi baaraha page-ka 11aad. wuxuuna ka hadlayaa xulashada dulucda daraasadda ama generated research topic. bismillaahi الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa maanta isla qaadaa dhigi doonaa ama in badan aan fiirin doonaa meelaha ugu muhiimsan ee la doonayo qofka cilmi baaraha ah inuu ihtimaam badan siiyo inta uusan ku fikirin qorista daraasadda. waayo qorista daraasaddu waa tillaabada ugu dambeysa ee la qaada. waxaa ka horeeya tillaabooyin fara badan. waxaa kow ugu muhiimsan waxa loo yaqaano xulashada dulucda daraasadda, taasoo maanta aad doonayno inaan isla lafa gurno, isla eegno maxaa laga doonayaa qofka cilmi baaraha markii uu xulanayo dulucda daraasaddiisa. runtii waana albaabka ugu horeeya ee laga soo galayo qorista daraasadda. waayo jaamacadda waxaad dareemaysaa intaysan buug soo qorku dhihin inay ku dhahdo bal la ima wax loo yaqaano duluc 3, 4, 5 waxay doonaan noqdaane. idan xulashada dulucda marka waa qaybta ugu muhiimsan ee laga go'aan qaadan karo ama ardaygu ay muhiim u tahay inuu iska fikiro in badan. waayo haddii aad mar ciwaan xulato ee aad jaamacadda geysato ama ciddii kale ee kaa qabanaysa aad u geysid oo mar lagu aqbalo, ciwaankaasiiti kama gaartid hadduu yahay ciwaankuugu kaa baaxad weyn aadan qaadi karin oo aad xamili karin ama aadan qori karinba. idan marka see loo taxliiliyaa ciwaankan talow ma igu habboon yahay oo ma qaataa mise iguma habboona? go-aan qaadashadaasiiti waxa keenaya waxay tahayba inaan in badan u fiirsato waxa loo yaqaano xulashada daraasaddaada. idan marka waana maanta meesha aan doonayno inaan isdul taagno. cutubkeena 3 ee buugga hagaha cilmi baaraha ah, marka aad tagto bogga 11aad ee buugga hagaha cilmi baaraha, waxaa ku qoran cutubka 3 oo ka hadlaya generating research topic oo ah xulashada dulucda daraasadda. haddii albaabkan ama ciwaankan ardayga si qoto dheer u fahmo, intaan la gaarin qorista daraasadda, wuxuu 80% kalsooni ku qabayaa naftiisa inuu buuggiisa qoro. haddii ay ka wareerto meeshan ama ciwaanka kana uu ka wareero dulucda daraasadda qaabka loo doortana, waxaa dhacayso in gacan saddexaad meesha timaado ama cid kale oo buuggiisa u dhiibo, taasna ay keento inuu lacag bixiyo laaluush ah si buuggiisa loogu qoro. marba haddii meesha been timaadana waxaa imaanayso xaaraam, oo lacagtaas aad bixinayso waa qadcan baa xaaraan weeyaan. waxayna xaaraan ku tahay waxaa weeyaan buugga markaad jaamacadda geyso ma dhehaysid waa lay soo qoray, waxaad leedahay anigaa soo qoray. marba haddaa been sheegtana meesha waxaa imaanaya maxay inay xaaraam ku jirtaa dareemaysa. idan marka taasi maanta kama hadlayno, laakiin see looga badbaadi kara ka hadlayna. waana nasiib dara runtii
inaad lacag $50 iyo ka badan $100 inaad ku bixiso buugaaga adigoo ku baran kara lacag $20-30 ku baran kara. bal eeg, idan midna ogow, ceeb ma aha baajkaaga ugu horeeya inaad ku wareerto qaabka loo qorayo, laakiin waxa ceeba beri adigoo master ah inaadan aqaanin sida buugaaga loo qoro, sida ciwaan loo xusho, sida waxa loo yaqaano ishe buugaaga loo difaacdo aadan garanaynin. yani taas baa ceeb ma aha waxa loo yaqaano inaad baajkaaga ugu horeeya aad ku wareerto. ogowna maadadan research methodology-gu ma aha maada kaa daba hari doonto. haddaa baaj ka dhammayso waxaa laga yaabaa baaj labaad inaad diyaarin doonto, inaad master aadi doonto, inaad meelo kale aadi doonto, xitaa shaqadaaday soo dhexgelaysaa. maadada research methodology-gu haddaad dhehaysa xataa jaamacadiyaan dhameeyey aniga maanta kadib waxaan ugu baahanaa buuggayga difaacday. muhiimadda waxay tahay maadada ma taqaanaa buug difaaco ama ha difaacanin. xaqiiqdiina ogow, maanta waxaad joogtaa waddanka aad joogtaa, laakiin beri waxaad aadi doontaa qurbaha aadi doontaa. maanta waddanka markaad joogto fiiri, lacag kuguma socoto oo waddankaaga aad joogtaa. dalku gal ama fiisa kaa dhacaya ma jiriyo waqti lagu haayo. jaamacadihiina waa iska taqaanaa, maalinta talaadada lagaa rabaa haddii lagu yidhaahdo arbacada dambe in lagu dhigo waa laga yaabaa lagu shaqfal duleelay. laakiin wadamada caalamka markii aad tagto, haddii lagu yidhaahdo buugga waxaa lagaa doonayaa khamiisle lagaa doonaya, dheedleenu leeyahay. idan beri marka fiiri, maanta iyadoo waqti lagu qabanayn oo qarash kugu socon, haddaad buuggaaga aad qoran weyso oo adiga mas-uuliyad ka qaadi weyso, beri ogow yacni inaad ku guuldaraysanaysid. intaas markaan uga tago hordhaca, maanta waxaan isla qaadaa dhigi doonaa cutubkeena 3aad, xulashada dulucda daraasadda. ciwaankan kan marka ardayga markii uu soo galayo jaamacadda ama qaybta ugu dambeysay ee qalinjibinta markii uu gaaro, runtii jaamacadda laga doonayaa ardayga in wacyigelin loo sameeyo, lianna ardaygu markuu jaamacadda sii dhammaynayo waxaa kusoo wajahan wax loo yaqaano maxay, dagaal aad u fara badan baa kusoo wajahan. maadaama dagaalku ugu soo wajahayna waxaa fiican inaad noqoto qof sirdoon ah, inaad suuqa gasho, ardayda ka horeyso wareysato. jaamacadduna waxaa laga rabaa inay wacyigelin kuu sameydo oo ah inay kuu sheegto kulamaa dagaalka aad galayso xooga uu leeyahay. waayo kulamaa dagaalka aad galayso cadowgaaga aad ka warhayso cududiisa iyo ciidanka u wato iyo hubka u wato, waa kulamaa diyaargarowga aad u bixin doonto. marka arday fara badan marka maadaama aysan diyaargarow fara badan aysan muujin, buuggiina laga rabo, aysan rabin haddana ardayda inaysan ka harin, khiyaana meesha imaanaysa marka inuu lacag bixiyo lagana faa'iidaysto, lacag dhawalan laga qaado. marka waxaan doonaynaa marka maanta inaan in badan ardayda ka taageerno qaabkee loo xushaa markii la xulanaysa maxaa la iska rabaa. ciwaanka kan horta hore waxaa weeyaan cutubka 3aad, wuxuu ku yaalaan buugga hagaha cilmi baaraha page-ka 11aad. wuxuuna ka hadlayaa xulashada dulucda daraasadda ama generated research topic. waxaana marka halkii kane ama ciwaanka kane ee kore waa qaybta ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in si gaar ah oo taxadar leh looga fiirsado. ogow, si ciwaan loo xusho ama duluc loo xusho, yani haddii yani ma aha wax weyn oo ballaaran ma aha. eeg, wuxuu ku leeyahay buuggu, haddii waxa loo yaqaano yani si ciwaan ama duluc loo helo, waa mid sahlan haddii loo fikiro si wacan iyada oo mid loo eegaya tallaabooyinka soo socda. ardayga waxaa laga doonayaa marka inuu eego waxa loo yaqaano qaybahan meesha ku tixan. tan ugu horeysa waxaa weeyaan marka hore inaad ogaatid source of research problem, ilaha laga heli karo waxa loo yaqaano research problemska. yacni waxaa jiro meelo laga soo helo ciwaanka kugu habboon ama aad doonaysid. meelahaas marka way badan yihiin, waan arki doonaa. waxaa laga doonayaa marka meel walba inaad soo eegtid oo kana eegtid oo kana eegtid oo kana eegtid. qaybta labaad muhiimada inaad saarto waxaa weeyaan wax loo yaqaano concentration.
concentrationku waxaa weeyaan waxyaabo isbiirsada weeyaan oo ilaa 8 ilaa 9 gaarayo lagana doonayo inaad tixgelin gaara siiso ayagana waan arki doonaa. waxaa jira sidoo kale waxa loo yaqaan topic to avoid, ciwaano aan lagu ogolayn inaad marnaba qaadato. topic to avoid, ciwaano lagu diidan yahay inaad ka hortagto, inaad qaadato iska dhaafe, inaad diidda marka hore laga rabaaba. kan ugu dambeeyna waxaa weeyaan steps of topic creation. qaybta marka horaan usoo qaadanay iyadoo videona way ku jirtaa meesha loo yaqaano YouTube-ka way ku jirtaa. waa fahamka dulucda waa cashirka ugu horeeya aan soo dhignaba. that's why aan soo hormarinay muhiimadiisu leeyahay. maanta marka waxaan doonaynaa qaybta ugu horeysa inaan qaadano oo ah source of research problem. horta intee laga helaaba waxa loo yaqaano oo ahayd source of research problems oo qaybta ugu horeysa ah. waa albaabka ama ilaha aad ka soo ogaan kartid dhibaatada taagan oo xal u baahan, taasi oo daraasad buuxda laga qori karo. waxaana ka mid ah ama waxay kala yihiin sida tani ee hoos ku soo socota. inagu hadda waxaan soo qaadanay 5 ilo ee ugu muhiimsan ee lagu isticmaalka badan yahay, laakiin intaan way ka badan yihiin. macnaha maaha intaan kaliya yihiin source, waa meelaha ciwaanka laga soo helo weeyaan. qaybta ugu horeysa ciwaanka laga helo waxaa kow ka ah meel loo yaqaano experience. waan eegi doonaa hoos inoogu qoran yihiin tafaasiirtooda. 2 waxaa ka ah waxa loo yaqaano observation. 3 waxaa ah waxa loo yaqaano imbalance. 4 waxaa ah waxa loo yaqaano literature source. 5 waxaa ah waxa loo yaqaano suggestion iyo recommendation. bal qayb aan u aragno 5tan qaybood. qaybta ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa experience. experience waxaa weeyaan waa adiga oo wax ka qoraya xaalad aad u soo joogtay, taasi oo aan cidda kaaga waramaynin. horta duluc ama daraasad waxaa la yidhaahdaa inaad xaliso hawl ama dhibaato meel ka taagneed inaad xal u keentid. tusaale ahaan gurigiina korontadii maanta ka tagtay, inaad ogaatid bal korontadii idinka tagtay soo problem ma aha, dhibaato weeyaan jirto soo maa taagan. ma saacadda islimisay, ma fiilada meel ka mid ah go'day, ma matoorka guuda la damiyay oo shirkadii damisay. ma ogaan karta adiga, laakiin marka ugu horeysa waa inaad saacadda fiirisaa, kadib haddana korontadii eegtaa fiilooyinkeedii, kadib marka labaad inaad shirkadii telefoon dirtaa tiraahda xaaladu waa sidee, waa halkee laga haystaa korontada. taa waxa weeyaan waxa loo yaqaano duluc weeyaan. dulucda meelaha ugu waaweyn laga soo helo waxaa kow ka ah experience. waa xaalada adigu u soo joogtay. experience waxa leedahay khibrad, waa xaalada aad adigu u soo joogtay oo aan cidna kaaga sheekeynin. tusaale, fatahaadihii ka dhacay ama fatahaadihii ay sameeyeen webiyada Soomaaliya. dhacdadii ugu dambeysay waxaan umaleynaa inay hiiraan ahayd beledweyne. xaaladaasoo kale wadanka waad joogtay, wadciga waad joogtay, cidna uguma baahdin inaad uga waranto. siiba haddaad heer hiiraan tahay oo ama beledweyne aad joogtid oo kale, xaaladaasi way ku saameysay. magaalada qaabkay u saameysaa ogtahay, fatahaadu qaabkay ku bilowdayna ogtahay, xilligay bilowdayna ogtahay. cid inaad ugu daba fariisato marti u noqoto ma baahnid. experience-gadaada leh. waxaa 2 ah dagaaladii uu dalka soo maray. wadankayna Soomaaliya ama Soomaalideynaba waxaad ogtahay dagaalo badan in soo marnay. inagu waxaa laga yaabaa inaan yarnahay oo aan cid u daba fariisana, laakiin dadkii inaga weyn ama inaga sareeya uma baahna inay cid u daba fariistaan. laakiin ana xaaladda 3aad waan joognay. aafada koroonuhu 2020 dhacay sax, December 19 soo bilowday. COVID conference-ka dhibaatadii uu geystay wadanka caalamka u geystay ma aha dagaalkii koowaad adduunka, dagaalkii labaad adduunka camal ma aha. waa xaaladaad u soo joogtay, meeshaad ka baaraysa waad ogtahay, meeshaad ka raadinaysa waad ogtahay. ma aha wax dad aad u daba fariisanayso aan cilmi u lahayn, ma aha, waad sii fahamsan tahay. waxaa kaloo experience noqonaya qaxii wadanku u soo maray.
isla dagaaladii way la mid yahay. Marka muhiimadda guud waxay tahay yani waxaad adigu experience u leedahay cidna aan isan kaaga sheekeyn. Tusaale ahaan meel maqaaxiya ka shaqaynaysaa ama meel waxaad ka shaqaysaa yani shaqadaadu ay tahay meel petrol ah, meeshii baa dabka kacay, ilaahay ma keenay. dabkii markuu kacay adigu waxba kuma gaarin, cidna wax kuma gaarin, laakiin hanti baa meeshii ku burburtay. yani meeshaas oo kale ma rabtid yani qof aad u daba fariisato oo aad ka wareysato, su'aalo ka weydiiso ma baahna, adigaa joogay. idan ada u madax banaanaan karo inaad ciwaan qorto. problema taagan, problemka muxuu yahay marka? dabba meeshii ka kacay, dabkii kacay wuxuu keenay inuu hanti burburiyo. dabkaas maxaa keenay waa marka in la baaraa. IV-gaaga maxaa waaye? dabkii wixii keenay waaye. ma qof baa sagaar nagu agacabay? ma kuleel daran oo heerkulkii ma sare kor u kacay? dhibaatadii dhacdana maxaa weeyaan? waa hantidii burburtay. adiga lagaa doonaya marka experience-ga inaad kaashatid. halka saasaa ciwaan ku haysataaba. yani ciwaanka baaraysa muxuu yahay? waa dabkan kacay inaad ogaato maxaa kiciyay, inaad fahantaa jeclahay. experience marka waxaa la yiraahdaa xaaladaad adigu soo joogtay. tilaabada labaad experience yani aad duluc ku heli karto waxaa weeyaan observation. waxaan filayaa dhamaantiin bogga wada haysataan, yani waa bogsiinaya kaliya. experience yani observation waxaa weeyaan waa xaalad aadan adigu u soo joogin, laakiin mushkilada jirta aad dareemi karto, yani inay xal u baahan tahay lana xaliyo. tusaale ahaan, tusaale hoos noogu qoran waxaa weeyaan shirkada shaqaale ka tahay ama kuu qaadatay. maalintii ugu horeysa soo shaqo tagtay waxaad aragtay maamul xumo baahsan inay jirto. tusaale ahaan in gabadhii nadaafadu inay 3 saac 4 saac maalmeed iska imaanayso. waxaad arkaysaa shaqaalihii ugu muhiimsanaa meesha yani inuu iska imaanayo 6 saac wixii ka dambeeyo. in qof laga fasax qaato maamul uusan jirinba oo maamulkiiba iska maqan yahay, qofkii shaha u baahan shaha iska doonanayo, qofkii wax u baahan macaamiisho fadhido in banaanka la iska aaday laleeyahay jaadaas waxa ay sheeg xanjaa soo cunaya. yani waxaan macno lahayn loo baxaayo. idan waxaad dareemaysaa marka adiga dhibaatada jirto uma jeedid. ma mushaar xumaa jirto, ma shaqaalaha godoodsan, ma yani waa la adoonsadaa yani waxay iska fiiriyaan ishi shaqa maamulka iska fiiriyaan, ma dareemi kartid. laakiin observation yani cilmiga aad leedahay iyo xadaarada aad leedahay iyo ilbaxnimadaada waxay ku siinaysaa inaad dareemi karto meesha in xaalad ka jirto. tusaalaha labaad waxaa weeyaan soo qaadan karno, saaxiibkaa baa soo raacday, gurigiisa imaaday. gurigi markaa imaaday, qolkii fadhiga aad gashay. caadiyan waxaa anagu dhaqan u leenahay sax Soomaali ahaan, markaad guri islaameed ama qof uu leeyahay aad u raacdo, gurigu qofka joogo inuu isxilqaamo, ama xaaskiisa haday tahay, ama hooyadii haday tahay, ama walaashii ay tahay, yani in shaah lagu keeno, haday galabay tahay in yani biyo lagu keeno, in lagu soo dhaweeyo, weji furnaad aad hesho. okay, qofkii saaxiibkaa soo raacday, gurigiiya imaadeen. markaad fadhiga fadhiisateen, qof buu u yeedhay. qofku u yeedhay hee buu yidhi, waxbuu ka dalbaday, wixii uu dalbaday looma keenin. yani waxaad dareemaysaa in xiriirka faamilkan ka dhex taagan inuusan ahayn mid toosan. laga yaabay qofkaasi inuu mashquulsan yahay, laakiin dareen ahaana waxaad dareemaysaa yani inaad adiga xataa lagugu faraxsanayn guriga aad soo gashay. yani xalka muxuu yahay marka? ama inaad adigu degdeg guriga ugu baxdaa, yani lagaa qiimeynin gurigan aad u jeedid, ama qofkan uu isla markii asiga kaca oo asiga kuu soo adeega. labadaas xal, labadaasay noqon kartaa. muhiimadu waxay tahay muhiim inaan ku fahamsiin aan rabe kaliya. observation waxaa weeyaan inaad wax dhuux. observation macnaha guud wuxuu yahay horta inaad wax dhuuxdo, indhayso. indhayntaas marka waxaa weeyaan waxaad kaashanaysaa khibrado hore aad leedahay, laakiin xaaladda meesha joogto ma dareemi karta, mana ogid, adiga uma joogin alaashaan. idan labada hore marka experience-ga observation-ka saasay kala duwan yihiin. tilaabada saddexaad oo aad ciwaan ku heli karto waxaa weeye wax loo yaqaan imbalance. imbalance waxaa weeyaan tusaale ahaan waa wax aan sineen waayo. tusaale ahaan waa iyadu waxa loo yaqaano ii sheeg maktabada jaamacadda, ama waxa loo yaqaano jaamacadaada waxay leedahay maktabadeeda 2 daraasadood baa yaala.
labada daraasadood ee yaala midba waxaa laga qoray 20 buug, midna waxaa laga qoray 18 buug. adigoona ciwaan raadin, dhibaato kale aan raadin, inay jaamacaddii ku wacdo ay ku tiraahdo maadaama ciwaankan laga qoray, dulucdan laga qoray 20 buug, si buuggan dulucdan looga dabageeyo buuggaaneti 18kan waxaa ka dhiman marka 2 ciwaan si 20 looga dhigo. maadaama 20 laga dhigayo, marka muhiimaddu waxay tahay in cadi ciwaankii lagu siiyo in lagu yiraahdo ciwaanka wax ka soo qor. imbalance aan ku celiyo. imbalance waxa weeye inta badan jaamacaduhu way sameeyaan oo markaad ciwaan geysato ciwaankaaga lagugu soo celiyo marka dambe ida ku siinaysa ciwaan. imbalance marka waxa weeyaan maktabada jaamacadda ama maktabada dawladda waxaa yaala 2 buug. labadaas buug waa tusaale ahaan weeyaan. labadaas buug marka mid waxaa laga qoray 20 buug, midna waxaa laga qoray 18 buug. maadaama 18 buug uu ka yar yahay kan, si loosla simo oo 20 looga dhigo, adigaa ciwaan lagu dhiibiyaa. marka midkan 18 ana hadda calaameeyay ciwaana lagu dhiibiyaa, arday kalena ciwaana loo dhiibiyaa, si labada ciwaan marka la soo dhameystiro ee labada buug u noqdaan 20. sifadaasna waa lagu helaa dulucda. sifada afraad ee lagu helo waxa weeyaan waxa loo yaqaan literature source. literature source waxa weeyaan in aad soo aragto ama aad soo hesho daraasooyin hore loo qoray misana aad akhriso. yani waxa weeyaan buugaag hore loo qoray adigu qaadanaysaa, adiga ciwaan raadinaysaa, laakiin buuggan waa iska akhrinaysaa kaliya. ciwaanka buugga markaad akhriso kadib waxaad heshay meel ay ku liitaan ama uu ku liito buugga hadda akhrinaysidba. مثلا ciwaan baa akhrinaysaa, ciwaankan waxaa aragtay meelo badan oo ku liito ama uu been sheegayo. tusaale ahaan waxaad heshay buug ka hadlaya coronavirus. markaad akhrisay waxaad ogaatay buuggani wuxuu yani uu leeyahay coronavirusku waxa uu hoos u dhigay dhaqaalihii caalamka. sax hase yeeshee wuxuu horumar baahsan ka geystay wax soo saarka iyo waxbarashada. marunba يعني buugaa heshay literature source waxaa loo yaqaanaa ciwaan buug baa heshay oo qof uu qoray. buuggaasiti waad soo qaadatay, gurigaagaad geysatay, waad akhrisay. adigoo akhrinaya waxaad aragtay buuggaasiti meelo uu ku daciifsan yahay. si buuggaasiti meelaha uu ka daciifsan yahay aad been uga dhigta ama adiga aad controversial ku noqoto, aad kasoo horjeesatid oo aad ku beenisid waxyaabaha uu run ka dhigayo laakiin beenta ah, yani inaad ciwaankaasi qaadato kadibna aad ansaxasato adigoo ku doodayo meelahan uu ka liita. tusaalahan soo qaad waxaa weeye inaad soo hesho buug coronavirus ka hadlaya. tusaale ahaan buuggaasi wuxuu leeyahay coronavirusku waxa loo yaqaano wuxuu yani saameyn baahsan u geystay dhaqaalihii caalamka. waa sax, hase yeeshee wuxuu yidhi wuxuu yani tallaabo horumar leh ka gaarsiiyey wax soo saarkii beeraha iyo waxbarashadii. taasna waxaad u jeedaa inay been tahay. saas awgeed ciwaankaas waad qaadanaysaa, waxaad doonaysaa marka inaad wax ka qortid, waad ansaxsanaysaa. sifada afraad ee ugu dambeysa waxaa weeyaan waxa loo yaqaano suggestion iyo recommendation. suggestion iyo recommendation wax kale ma aha, waxaa weeyaan inaad qof kaa horeeyay ee jaamacaddii soo dhameeyey ee ama supervisor ah ama jaamacado waaweyn wax ka dhiga ee PhD haysta, inaad tala ahaan u weydiisato, tiraahdo maxaa ila gudboon inaan wax ka qoro, waxaan waaye ciwaan aan qaato, kadibna asiga suggestion soo jeedin oo ku sameeyo ama recommendation oo kula taliyo. yani ciwaanka ma fiicno kan baa, ama adoo ciwaan haysto buu ku arkay uu kula taliyay, marka wuxuu ku yiri kaalay ciwaankan supervisorada u badan wuxuu ku leeyahay ciwaanka soo gud markuu ku dhaad u geysid, wuxuu ku leeyahay ciwaankan wuu ka xad weyn yahay ma qaadi kartid, ciwaanka inta ka bedel kan ku bedelo buugga kanka buugga soo qor. yani wuxuu ku dhiibayaa koba aad qaadan karto. fahmaysaa? taas marka waxa weeye idina waa suggestion and recommendation. insha Allah ta'ala marka yani qayb aan u qaadi doonaa, hal mar ma ka wada bixi doono. hadda waxaan dharaa marka ciwaanka kani waa ciwaanka ugu horeeya qofka bini'aadamka ama qofka cilmi baaraha inuu iska fiiriyo loo baahan yahay. waa xulashada waxa loo yaqaano dulucda daraasadda. in badan iska eegta laga doonaya. marka waxa kamid ah source of research problems ka inaad iska fiiriso meelaha ciwaanka laga soo helo oo shantii hadda aan soo sheegaynay.
sidoo kale waxa loo yaqaano consideration oo beri aan ciwaan gooniya yacni aan kasoo samayn doono video gooniya. sidoo kale waxaa jira topic to avoid, ciwaano aan lagu ogolayn inaad qaadato, iyo waxa loo yaqaano steps of topic research. marka qaybta ugu dambeysa ee dhiigana horaan usoo lafaguray laakiin waan ku laaban doonaa insha allahu tacaala. intaasaan ku sameeyaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.